laba eray baan ayaan raacsan lahaa kale quraan waa la ducadee wax walbana in lagu furfuraa way wanaagsan tahay waxaynu u fadhinaa horta akademigu kollayba xil weyn buu inoo hayay anigu ilaa muddo dheer baan xidhiir la lahaa oo kollayba si aanu la xidhiidhaba howlo badan aan la qabtay ilaa malaa 2004 haddana kaba horey waxaanu dee ka shaqeeyaa xalinta khilaafaadka iyo maamul wanaagga ayuu badanaa uu aada uga shaqayn jiray howlahana waa kala soo qayb qaatay taynu maanta u joognaa waxa weeye ereyga democracy oo democrat xukunka shicibkaa leh ereygu greeg buu ka yimi awoodda shicibkaa leh ayuu ka soo jeedaa maogti waxay yidhaahda crossroads bay yidhahdaan inkastoo aanan la socon programka qoladii wadiiba insha allah inoo soo cadaatayn doona yani democracy-gii somaliland oo taagan kala baydh xagga u dhaqaaqi lahaa wuxuu soo gaadhay waddo ay kala qaybsantay oo dee critical oo tallaabada dhinacii loo qaadi lahaa haddii aynu isweydiinayno maantana wujuuhul qowm ayaa halkan fadhiya oo dee tiradooda iyo wixii dee ay ku talinayaan laga raba kelmadan odhan laha waxa weeye caalamkan oo dhammi meeshaa doonta ku dhaqno diintaad doonta hayso mid keliya u socdaa mid keliya ayuu socdaa dal walba uu doonaya wax la yidhaahdo ama muslim ahaw ama christian ahaw ama dee maanta chineska guulaystay biladiintaaba ahaw waxaa loo socdaa wax la yidhaahdo maamul wanaag inagu dee dad muslim nahay diin baynu leenahay magaraysa maanta dee kolleyba xalaal iyo xaaraan baynu leenahay oo wixii dee aynu qaadanaba waddadaasaynu dee ku egeyna baashan democracy-na culimmadeedu waxay yidhahdeen horta marka democracy la yidhahdo waxa weeyaan xuquuq iyo xorriyaad baad xusuusanaysaa marka democracy la yidhahdo dee xuquuqdii dadku siday u heli lahaayeen iyo dee magaranaysa ru'aantii xorriyaadkoodii marka culimmadeedu mid bay ku laadheen waxay yidhahdeen xorriyad xuquuq laa xorriyad fusuuq yani waxaa xor loo noqonayaa sidii dadku xaqoodii ay dadka ku ahaayeen ay u heli lahaayeen yani ummadda ama bulshada ilaahay dhaqay sidii ay democracy-gana wadaadka qardaawi aad baaba u ogolaadaa uu dhintay allah u naxariiste isaguna sidaan leeyahay isagaa ereygaana leh xorriyad xuquuq laa xorriyad fusuuq fusqi iyo xumo xor looma noqonayo laakiinse xaqii aad qofka ku ahayd ee aad ku jiraysay ayaa xor loo noqonaya xuquuqdeenni baynu helayna marka waxa weeyaan maamul wanaag baynu insha allahu doonaynaa democracy-ga dee aa sheegaysaana axsaabta ayay kasoo bilaabantaa markaasay dee dowladdii sarana dee ay gaadhaysaa waataa maanta doorashooyinkii aynu arkayno inta keliya dee ay ka tilmaamneed waxay doorashooyinkii waad arkaysaa dib uu dhacay dee bahashii waxa weeye axsaabtiina waa laga cabanaya oo ninkii dibadda joogay meel allaaliya meel uu ka soo galo siyaasaddii ma haysto urkan kootada dee ku haysta meel allaaliya meel ka soo galo waxa weeye dowladdiina dee waataa insha allahu tacaala ku guulaysan inaynu isbeddela samayno laakiinse madaxdii iyo wujuuhu naas baa tihiin maante waaba dalkii dee xaggaynu u raraa maamul wanaagii cabasho badan baa taala waxa weeye waa taa doorashooyinkii kolba dee dib u dhacayaan marka bal intaasuma ku dardaarna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu